ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier oo maanta suxufiyiinta gobolka Awdal lagu qabtay Hotel Sow ee magaalada Boorame tababar kor ugu qaadayaan mihnada saxaafadda waxaana ka soo qayb galay barsaabka xigeenka gobolka Awdal isku duwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Awdal gudoomiyaha ururka Soldier ee gobolka Awdal iyo xubin ka socotay xuquuqul insaanka ugu horeynta ayaa halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Awdal sidoo kale waxa hadalka ka daba qaatay gudoomiyaha ururka Soldier ee gobolka Awdal isagoo ka hadlayna hadaladoodii kamid ahaa in badan baynu ka hadalnay saxaafadda iyo anshaxeediyo sidii loo meel marin lahaa waxa looga baahan yahay qofka suxufiga inuu iska ilaaliyo isagu oo ka waantoobo waxaan uu qorayo markaan dambi galno ee aan shakhsiyaad ama xukuumadii aan ku xadgudubno inaan hadhowna qaylino oo aan ka tagno sharcigii saxaafadda oo niraahno hebel baa gardarro lagu xidhay hebel baa sidaan lagu sameeyey taasi aan waan ka soo horjeedaa waxaan leeyahay war inagu aan dhowrno oo xadgudubkaan iska dayno xaq baa lagugu leeyahay adiguna xaq baad leedahay markaad qofku xadgudubto ama wasiir oo kale aan soo qaato markaad been ka sheegta cad eed haddana hadhow ku dacwooto waa laygu xadgudbay ma adigaa qaldan waa inaan xaqiiqada inagu sheegno haddaan suxufiyiintii nahay xariguna inooga yaraado hadda cid kasta oo la xidho oo suxufiya aan waxaan aaminsanahayn qaladka xaggeena ka yimid marka waxaan leeyahay aan ilaalino labada dhinacba xaqa laynagu leeyahay iyo xaqa aan leenahay oo aan ku dhaqanno sharciga saxaafadda aan ku dhaqanno runta oo aan warka runta ka sheegno sida uu yahay aan u dhigno xadgudubyada iyo personal attack aan iska dayno waxaan soo dhaweynayaa tababarkani iyo ururka suxufiyiinta Soldier oo aan iyagana leeyahay wariyaynu hor cararin suxufiyiinta iyo maanta waxaan iskugu nimid sidii aynu uga hadli lahayn inta badan waxyaabo idinkana culays idinku ah dhinaca xukuumadana culays ku ah oo ah tabiqida ama se fahamka shuruucda u dhaxeeya wariyaasha ama bahda saxaafadda iyo waaxaha garsoorka iyo xuquuqul insaanka tababarkan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka wada shaqaynta ka dhaxaysa laamaha garsoorka iyo laamaha wararka ka doonaysaan marka wixii culays idinku ah wariyaal ahaan oo la xiriira dhinaca wartabintiina iyo mihnada saxaafadiina yaa loo baahan yahay in aan kor loo qaado geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay xubin kamid ah xuquuqul insaanka oo hadlay ayaa waxa uu yiri sida la socotaan saxaafadu de muhiimada ay wadanka u leedahay waa laga wada dheregsan yahay sidaas daraadeed waxa jiray hay'adda xuquuqul insaanka qaranka maadaama ay u qaabilsantay xuquuqdii insaanka Soomaaliland waxa jira xoogay cabashooyin badan oo naga soo yara gaaray dhowr jeer qolyaha beesha caalamka iyo hay'adaha waaweyn ee la shaqeeya dabadeedna taas waxay keentay runtii in human rights-ka iyo Soldier ay go'aansadaan in goboladii la soo maro oo si loo ogaado bal caqabadaha jira dabadeedna marka looga tashado si mustaqbalka horumar looga sameeyo marka mashruuc yaro kooban oo goboladoo dhan laga qabanayo ugu dambeynta ayaa waxa halkaasi soo xidhay barsaabka xigeenka gobolka Awdal isagoo faahfaahinayana faa'iidada uu leeyahay tababarkani saxaafadda waxa uu yiri qofka suxufigii hadduu training badan qaato wuxuu noqonayaa qof dhameystiran ma idin sheegaya marka inaan tababarada si fiican u qaadano danteena inoo tahay midda koobaad hana yareysanin hana dhayalsanin hana miskareenina tababarku idinku danteena saxaafaddu waa inay mid saxda noqoto saxaafaddu sida la sheegay waa mid laba af leh hadii dhinaca wanaagsan wax loogu gooyana way xagga wanaagsan bay u jari hadii xagga khaldan bay jari negative iyo positive labadaba way leedahay sida daraadeed in xagga wanaagsan wax ugu jarno kuwa khaldan aan ku toosino waa farxiyalaki TV-ga qaranka Boorama.